duhurkii ah ayaa macallinkii nin soconaya dugsigii ugu yimidoo war uu ka naxay uga tibixsiiyey. wuxuu ku leeyahay, macallin Axmedow, gabadhii lagu diidi jiray niman ardaagal u ah ayaa dhowr cisho aabaheed marti u ahaa. wixii kale oo dhanna waa laga heshiiyey. tirada geela yaradka ah ayaa intaa lagu gorgortamayay. saaka ayaa arrintaana la isku afgartay. taladuna waxay tahay geed hebel in galabta lagu meheriyo. wadaadkii baa markaa haddiiba go'aan gaaray. wuxuu goostay gabadhaas iyo ninka soo doonay inuu isgafsiiyo, inuu goobtaa tago kana tiriyo gabay habaara oo kaas soo doonay iyo ninkii kale oo maqlaaba ay kaga cararaan. wax yar kadibna geedkii gabadha lagu meherin lahaa oo aad loo soo buuxiyey ayuu isa sii taagay. nin garanayay niman garanaynba mar qura ayaa la wada aamusay. isna meel laga wada maqli kara intuu joogsaday gabadhii oo gabdho kale kob gees ah la fadhidana murugsitada ku fiiqay ayuu yidhi, naagtaa gadaafaha qabtiyo culimo gaadeeda, naagtaan gugeedii maraha tira ku gowsiiyey, guduudkeeda unbay arkiya kuma gudayaane, allahayow ninkii guursadow aadan ku guulaysan. guryo ba'ay, cayr iyo ka qaad goobataal maran, gablan wiila'aaneed ilaah gorodda kuu saariye, waa meel inkaar lagu gubay ee dhaxal laguu gooye. gurbood iyo carruur ay dhashaa kuma gargaaraane, garka kuma qabtaan oo wiilasheed gogol ha qooqsiinne, gaafaha raggaad qaybsataan geedka kugu ciili. gaaniya irmaan guuna iyo goodar iyo qaarmugu dhalka iyo gaadiid la raro, gooniha u foobsan ganuun xoor lahood soo shubtana eebba kugu gaabi. rag ninkii hungurigeed galow minadu kaa guurtay, gaaniga la taageero iyo gabasku kaa leexay, geedkiiyo xiniyaha jirka oo guranna laalaadi. mar qurax ayaa geedkii lagu kala cararay. ninkii guurdoonka ahaa iyo raggii la socdayna geel wixii ay hormariyeen ayay odagii ka ceshadeen. wadeeco allah iyaga oo ku haya ayay reerahoodii u jaxiirteen. gabadhiina laba dambe isuguma imaan. gabaygaas ninkii maqlay iyo kii loo sheegayba 4 geedi buu ka fogaaday. sida la sheegay iyada oo weli gabar ah ayay gabowday. waayadii dambana waxay ku sheekayn jireen, macallin Axmed baa laga gaaray.